السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابديال سود هذا مركله. الحمد لله. إلهي با محد سكله تبارك وتعالى. ويسور تجل شيء إن أن دياريو مركله بوجي كلا عدو سوجيسين. بوجان وحنو بحشي سيدة تير أن حبها فضية هذا مثلاً. إن بوجي عدو سوجيسين لو يتوقعتنس الوضع الإنجليزي وكنا أصور مثلاً الصومالي كوشرحن oo cid kasta yani fahmi karta aan fududeeyay 12 tensiska oo dhan wuxuu sidoo kale uu ka kooban yahay tusaalooyin dhameystiran. tensiska waxa uu sameeyay negative, positive, negative question iyo waliba questions. afartii uu tensi uu ka koobnaan lahaa oo dhan waa uu ka kooban yahay. sidoo kale tensi kasta markuu dhamaado wuxuu wataa exercise. haddana exercise-ka markuu dhamaado هذا فهم ويسو in case wuxuu wataa answers jawaabooyin hadana jawaabooyinkana sidoo kale waxaan ku tarjumay af Soomaali adi buuga oo dhan tenseska kulli macal example kiisa all of them waxaan ku sharxay af Soomaali waa tafatiray waa habeeyay waa qurxiyay waqtiyaan geliyay waxaan ka soo saaray book international ah ardayda Soomaaliyeed ee soo socota mustaqbalka insha Allah taala iyo ku hadda jooga ee raba inay bartaan luqadda Ingiriisiga ku dhibtoon doonaan inay bartaan 12 tensiska si fudud ay ku baran doonaan 12 tensis ayagoo waliba macallin la'aan ah. sidoo kale buugan waxaan fici doonaa kaliya ma ahan arday, sidoo kale waxaan fici doonaa macallin xitaa waan fici doonaa. buuga wuxuu ka kooban yahay 83 page so PDF haddii aad u baahan tahay waan ku haya laakiin free ma haddii aad u baahan tahay WhatsApp-ka halkaas aan ku soo qoray lambarkaas WhatsApp-kaas igala soo xiriir insha Allah taala asagoo PDF ayaad iga heli doontaa hadduu Ilaahay idmo. buugan waxaan u baxshay sideeda tiir ee naxwaha fududeeyaha dhameystiran 8 pillars of grammar complete simplifier. buugan waxaan ku soo koobay sideeda tiir ee naxwaha yani 8 parts of speech sideeda qaybood ee hadalka ee luqadda Ingiriisiga ayaan ku soo koobay. waxaan ku tarjumay luqadda afka Soomaaliga wuxuu ka kooban yahay 77 page plus 2 cover. waa book hadduu Ilaahay yiraahdo ciddii hasha insha Allah taala ay si wanaagsan uga faa'iidi doonto waa huba insha Allah sababtoo ah waqti iyo juhdi ayaan galshay oo in muddo ah ayaan diyaarinayay. waxaan ugu talagalay insha Allah taala in ardada Soomaaliyeed iyo waliba macallimiinta Soomaaliyeed kaliya arday maaha iyo waliba macallimiinta Soomaaliyeed iyo qof kasta u baahan inuu barto si fiican u barto sideeda qaybood ee hadalka ee luqadda Ingiriisiga ee naxwaha luqadda Ingiriisiga inuu buuqan uu ka xaqabtiri doono baahidaas insha Allah taala. buugan wuxuu ka kooban yahay sideeda tiir ee naxwaha Ingiriisiga 8 parts of speech sideeda qaybood ee hadalka luqadda Ingiriisiga ayuu ka kooban yahay. cutub kasta ama chapter kasta marka uu dhamaado wuxuu wataa exercise ama layliyo. layliga markuu dhamaado sidoo kale wuxuu wataa answers jawaabooyin waan kaaga jawaabay. waa book in badan aan diyaarinayay aad wada sugayseen. book markii la yiraahdo book in la diyaarsho runtii ma fududa. waxay u baahan tahay maskax, waxay u baahan tahay aqli, waxay u baahan tahay waqti in la siiyo. intaasba marka waan siiyo ilaa mahadis alxamdulillah. ilaah baa ku mahadsan. ilaah baa markii dambe ii soo gabagabeeyay oo ii fududeeyay alxamdulillah. marka buugan free maahan maadaama waqti iyo juhdi aan ku baxshay xogaa khidmad yar jirto insha Allah taala hadduu Ilaahay ka raali noqdo. ciddii u baahan buugan WhatsApp-kaas aad u jeedaan ayaad igala soo xiriireysaan insha Allah taala hadduu Ilaahay ka raali noqdo. marka ma rabin inaan hadalka idinku badsho. buugan waad arki doontaan waadna ka dhargi doontaan waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.